munaasabadan lagu shaacinayay inay soo gabagabowday wejiga koowaad ee saaminta shidaalka oo muddooyinkii u dambeeyay ka socotay deegaanada gobolka Daadmadheedh ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha Wasaarada Macdanta iyo Tamarta maamulka gobolka kan degmada taliyaha qaybta booliiska ee gobolka cuqaal iyo waxgarad tiro badan waxaana ugu horeyntii gabagabada wejiga koowaad ee mashruucan faahfaahin ka bixiyay agaasimaha waaxda batroolka ee Wasaarada Macdanta iyo Tamarta عمر يوسف عمر waxaan doonayaa warbixin yar oo kooban idinka siiyo mashruucii aynu halkan hawshiisa ka wadnay ee shidaalka ahaa alxamdulillah ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh ilaahay inagu guuleeyeen hawshaasi si dhib yar oo qurux badan ay wejigii koobaad iyo kii labaad oo socday noo soo dhamaadaan guud ahaan inta ku talagalku ahaa waxay 3000 oo kiiloomitir in la sameeyo in la sahamiyo waxay kala lahaayeen dhinac walba wuxuu lahaa 3 weji wejiga koobaad oo 500 iyo wejiga labaad oo 500 iyo ka saddexaad oo 500 marka halkan aynu saraaro hawshu ku soo bilaabantay wejigii koobaad ee 500 ah uu ka soo hirgalay halkan markay yimaadeen feeskii koobaad ee 500 way dhameeyeen kadibna hawshii si smooth oo hadallaan oo aanay wax dhibi dhicin ay u dhacday alxamdulillah marka waxay go'aansadeen inay qaybtii wejigii labaadna ku daraan ay 1 kiiloomitir saa ku dhameystiraan macluumaadkii la qaaday hadda wuxuu ku jira xaaladii in la process gareynayo insha Allah marka processkaasi uu dhamaado kadibna waxa loo gudbi doonaa marxaladda ka dambeysay si shidaalkaas inuu jiro iyo inaanu jirin loo xaqiiqsado in badan ifafaalihii tusay way jiraan iminka kala raadinaya ee saamintan ay daarantay waxa weeye structure-kii ama wixii hayn lahaa inay muxuu ahaayay shidaalkii hadduu samaysmay oo soo baxay kaydin lahaa in la helo ayuunba hadda loo socdaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka isuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka cuqaal iyo waxgarad tiro badan oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba ku dheeraaday si ay bulshada gobolka Daadmadheedh uga qayb qaateen howlaha saaminta shidaalka dadweynahaasi balogsigis ku nooli way fahmeen way la qabsadeen mid yar iyo mid weyn way ilaaliyeen aad iyo aadna way mudan yihiin gobolada bariga marka uu batroolku ku noqdayna waxaan leeyahay sida balogsigis u shaqeeyay idinkuna u shaqeeya waxaan uqaasha iyo dhaqanka gobolka ugu dardaarmayna iyo shacbi weynaha sida yadii si la mid ah inay u dhabar adaygaan oo ay ooda ka qaadaan sahaminta shidaalka iyo khayraadka Soomaaliland sida u midho dhal lahaa duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Daadmadheedh Axmed Diriye Cabdullaahi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen tan waa noo farxad waxaan soo dhaweynaynaa feeska labaad ilaahay intiina gaarsiiya waxaan niyad iyo samaan bar soo dhaweyn waxaan deen sugu sheekaynaa imika niyada waa hididilada waa inaan anagu shidaalka inaan anagu Soomaaliland dhawaan insha Allah marti gali doono waxa farxad ah in maanta soo gabagabowday wajigii koobaad ee saamintii shidaalka oo ka socotay muddo 5 bilood ah run ahaantii way soo noqon doontaa shirkadu oo waxa weeye 2 bilood kadib ayaa hadii Allah idmo 500 xadhaynaya iman doontaa ugu dambeyntiina wasiir dowlaha Wasaarada Macdanta iyo Tamarta Yuusuf Cismaan Garas oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka reer Oodweyne ku amaanay sida qiimaha leh ay uga shaqeeyeen howlaha saaminta shidaalka waxa laakiin wasaaradda ugu yimid oo aan mid la qarin karay ahayn in aad iyo aad looga mahadnaqayay ama looga madna sheeganayay gacanta aad ka geysateen guud ahaan dadka ku nool gobolka Daadmadheedh gaar ahaan madax dhaqameedka xaqiiqiyan ورنتي وزارة وياديات أمان قارة إيه مهنق قارة أيوه هيسي وسيدا وما يركو شيء ده حنتو مقرصونه مركو روح الزدور يرى ودوينوه لمن عواندين ملا سي حولير شيدا الكوغ يبدوه قل لما جلي كرو حول كلامي تشري لكن وحرنتي صوب بحضي إنه النقضي أنتي وزارة إيه قبل هذا كلك وديوح قبل كي هو نكسنا حقع وحلقة بشدة إني وزارة هو شيء ده جودته inta in leego yani surtaaga wax dhiba iyo wax gardaama ah midna lagu ma hayo waxa aanu ka wasaarad ahaan aanaanu qarin doonin korna loo sheegi doona qiimeynteeda iyo sharafteedana la bixin doona runtiina warbixinada wasaaradda kulli madaxda ma mustaqbalka iman doonta xilli doorashooyin joognaa cid ku qornaan doonta wallahu a'lam laakiin anagu madaxaan wasaaradda waxaan isla garanay inaanu boorarkeeda wasaaradda ku sii taagno inuu gobolka noqdo gobolka ku dayashada mudan markii shidaal baarista noqoto oo uu qaatay isagu inuu yahay gobolkii koowaad ee ku dayashada hadalku cid ku socdo waa la garanayaa
waa qolada maanta cagacagaftiyo gawaadhidu u tageen kulley iyaga la filayay inay iyagu soo dhaweynta wanaagsan markii hore yeeshaan inay maanta laakiin wankii waa laga haystaa bal inaan tuuga iyo triga laga qaadin ayuun bay taladu tahay oo aanay kaalinta labaad laga riixan oo gobolada kale ka riixan muuse salaban maxamed warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Oodweyne